Assalaamu calaykum saaxiibayaal daawadayaal kusoo dhowaada barnaamij kaloo cusub oo idiin soo tabiyo kanaalka Aqoon TV. Magacaygu waa Cabdifataax Abduqaadir. Arday marka aad maqasho, maxaad ku mal awaali lahayd da'diisa? 10, 20, 30, 40, 50. Haddaba maanta waxaynu idiin haynaa ardayad jirta 90. Haddaba intaynan u guda gelin barnaamijka, fadlan ha hilmaamin inaad la sheer garayso saaxiibada, subscribe-na aad tiraahdo. Priscilla Sitanini waa muwaadinad Kenyaan ah oo ka soo jeeda magaalada Eldoret ee dalka Kenya. Priscilla oo da'deedu ay tahay 90 jir ayaa waxa ay noqotay ardayada ugu da'da weyn dunida. Priscilla ayaa iyadu waagii ay yareed chance aan u helin in ay hesho waxbarasho maadaama ay ka soo jeeday famil sabool ah oo beeraley ah. Waxay weligeed ku taami jirtay in ay wax akhriso waxna qorto joornaaladan ay akhrisato. Priscilla ayaa hankeedii iyo himiladeedii ka run sheegtay markii ay apply garaysay iskuulkan, iyadoo ay dadku ay la yaaban yihiin. Maamulaha iskuulka ayaa ku tilmaamay Priscilla in ay tahay ardayad aad u dadaal badan, carruurtana ay aad u jecel yihiin. Daawadayaal waxyaalaha la yaab kale ayaa waxaa ka mid ah in Priscilla ay klaaska la dhigtaan 7 carruur oo ay ayeeye labaad u tahay. Mar la weydiiyay carruurta ay ayeeyadu u tahay ee klaaska la dhigto, ayaa waxa ay sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin in ay isku klaas dhigtaan ayeeyadood. Carruurta fasalka la dhigata Priscilla ayaa waxa ay sheegeen in ay ku jecel yihiin in ay mararka qaarkood uga sheekayso sheekooyin waaye ah ayna u caqli celiso. Tani waxay ku tusaysaa in qofka bini'aadanka uusan quusanin oo mar walba uu hankiisa ku dhaqaaqi karo. Haddaba sidee bay kula tahay arrintan? Ma tahay qof aan horay chance u soo helin in uu wax barto, haddase da'du ay ka daba timid diyaarna u ah inuu wax barto? Fadlan noogu soo gudbi qaybta comments-ka. Fadlan ha ilaawin inaad subscribe garayso oo aad furato beelka si uu kugu soo dhaco barnaamijyadeena si joogto ah.